waxyaabaha aniga inaan qabiil ka hadlo inaan dadka kala sooco inaan magaranaysaa reer afkood ku hadlo iga soocay baan kaaga sheekeynaya qisadii waayo aragnimo anigu aan soo maray iyo qiso igu dhacday baan wax ka bartay waxay ahayd anigoo askariya baa waxaa dhacday fasax ciidan soo qaatay deegaanadeedii baan tegey markii aan tegey deegaanadii fasaxyada wali waxaan soo qaatay 15 beri ah oo isagoo wax yar iga harsan tahay 5 beri meelahaas baa reerkaan ka dhashay yeereen markaas dagaal baa dhacay laba qabiil baa dagaalantay waxaa la yidhi dagaal baa la aadayaa niman baa nala ka dilay waa soo aarsanaynaa baabuur baa baxayso ciidan maa saaran inaan raacdaa la rabaa qor baa lagu siinayaa waa kuu diyaar magaranaysa rasaasta waa kuu diyaar hada waxaa rabaa inaa raggeena nala ka dilay aan u soo aaro baabuurta inaan fuushaa la rabaa dagaalka waxay gashay waxaan ku eriyey anigu tolow nin dowladeed baan ahay askar dowladeed baan ahay ka mid ahay shaar dowladeed baan xirnahay fasax baan soo qaato wax yara iga harsan marka de anigoo waxaan ku eriyey dowladda u shaqeeya inaan hoos intaa u laabto askarigu dadku waxay u haystaan inaan la dhaarin laakiin askariga askarta waa la dhaariyaa anigu marka askariga ahaa waa la dhaariyey waxaa la ii dhaariyey dalka iyo dadka iyo diinta intaba ma garanaysaa inaan u shaqeynayo si lilaahi daacada ugu shaqeyn doono madaxda kale in la dhaariyo dadba u haysta dhaartan ku taagna waxaan ku la dhaariyo askari dowladeed la dhaariya ahay dee hoos uma laaban karo dagaal qabiil hoos uma noqon karee tolow iga daayay adiga tolkii tabti baan kaga fara mirooqsaday arrinta ku tala diiday kaga tegey xeradeeda baan ku noqday ciidanka yaan ka bacdi 2 sano kadib baa haddana sidoo kale fatax soo qaatay deegaanadii baa imi ama marka hore loogu dhigayo lalahaa reer baa lagu duulaya mise tolkiiba haddana sidii u shirsan meel baa lagu shirsan yahay waa la ii yeera mar kale waxaa la yidhi shalay waa nagu tala diiday waa nagu abar diiday adigoo wiilkeenni ahaa ma garanaysaa tolkaagi nahay ehelkaagi nahay baa xaggaa nooga dhaqaaqday oo iyadoo baabuurta la saaran yahay nagu tala diiday maantay waa kuu ducaynanahay dagaal baan u soconnaa na raac muxuu yahay dagaalku waan ku yidhi waxaa la yidhi niman tolkeena baa la soo weeraray waxaa la yidhaahdo niman kala laayeen waxaan rabnaa inaan u helino nimanka la ii sheegayo waa nimankii 2 sano ka hor lalahaa kaala wax ka soo laa 2 sano hadda waxaa laleeyahay waa loo heelinayaa raac waa yaabay calashaan ninkii shalay aan la dagaalamaysay oo lagu lahaa soo dil 2 sano ka hor maanta in lagu dhaho u heeli wax ila noqoto soomaalida iyo waalideeda dagaalka waxaad moodaa sab in la iskaga yeeray calashaan ani meesha u socdo manaf isbeeraa wata bilid buruuf miyaa xarna waxaa la yidhaahdo maxay tahay maalinba meel madaxa lagu gelinayo calashaan ninkii shalay lagu lahaa soo dil maanta u heeli wax caqliga saliimka qaadan karo waa noqon weyn waxaan ku iri meel raacayo shalayna waxaan ku iri alxamdulilah haddaan raacin arrintaa gelin maantana ma gelayo waxaan ku iri tolow raalli ahaada calashaan marka waxaan wax ka bartay soomaalida dagaalkeedu wax mucdo ku salaysan waa cadiifad iyo qurun joogto ah waxay ku leeyihiin erey aan la yaabay baa jira waxay ku leeyihiin waa la gobonnimo diriraa gobonnimo dirir muxuu yahay naftada heli maya gobonnimo dirir muxuu yahay ninka dagaal baa naga dhexeeya maxay tahay gobonnimadu ma qof anigu aan la dagaalamayo dagaal naga dhexeeya gobonnimo leh calashaan markiiba waxay ka dhigteenba dagaalka soomaalida waxay u haysataaba challenge baa moodaaba wax challenge camal ah baa moodaaba kubad in la soo ciyaarayo meel loo baxayo baa mooda waxaa la yaabay oo kale oo arkay nin mushaar qaadanaya oo qori haysta ama qori weyn buu reer ka yahay reer la dagaalamaya buu reer baa mushaar siinaya reerkana ku duulaya isagoo laba reer midna maaha laakiin waa isu shaqaysti way dhacdaa waa waxyaabaha cajiibka oo soomaalida dhexdeeda ka mida laakiin waalida ah marka niyahow adnaasirow hadalka waa dheereeyey waxaan wax ka bartay catifada soomaalida iyo qabiilka sida ay u isticmaalaan iyo dagaalka joogtada ah maalin kasta wiil hooyo dhashay
waqti ku bixisay wax la soo baray dagaal iska gelinayo macnaha ku salaysnayn marka cabdinaasir odayaasha aniga sidaas rabay in dagaal fudud ay geliyaan waxaan dib u ogaaday wiilashooda ay dhaleen inay jaamacada ka bartaan Turkiga Bangladesh Chinaha iyo Hindiya mabaad adigana si fudud ay rabaan in dagaal ku geliyaan waxaan waxba ahayn meel baa maanta lagu dagaalamayaa dad baa ku baaba'aya hooyaa ku gablanaysa ma garanaysaa ilmaha ku agogoonaya ma garanaysaa bari ka maalina dartibaa waxaa la yidhaahdo odayaashii labada dhinac dadka madaxa isku gelinayay ku wada sheexayaan ku sheekaysanayaan ama siyaasi ha noqdo ama oday ha noqdo calashaan ma garanaysaa laakiin waxaa la yidhaahdo cid kasta oo fikirta oo caqliga saliimka ka shaqaysiisa waxaad dib isku xasuusisaa ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu kuu abuuray maxaa dunida laguu keenay maxaa laguu sameeyey inaa reer ku duushibaa maya ilaahay inaa caabuduu kuu abuuray okay wax kale marka ka baxagga iska dhig ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuurtay ka cabso ka baq reerka iyo qabiilka iyo xabadda aa wadataan dhinac dhalinyarada kamaraan leeyahay yaan laydii adeegsan si khaldan naftiina yaan lagu khamaarin siyaasi ama oday dan kale kaaleh iyo ma garanaysaa ku adeegsan baanan leeyahay intaasna fariin baa halkan fursadda uga faa'iidaysanayaa cid kastoo u dhegeysanaysaa fariinka u diraya dhalinyarada Soomaaliyeed qof kastoo naftaada ka bilow toosnaanta qof kasta naftiisa hadduu ka bilaabo dhalinyarada Soomaaliyeed qof dhibaateynaya ma jiro qof wada ku dilaya ma jiro qof dulminaya ma jiro adigu naftaada ka bilow cid kale aadin